sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna waa sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku soo qaadanayna waxbarashada tabarucaadka ee fulinayaan ardayda jaamacadaha xilliga fasaxa ee ku sugan xarunta gobolka Erar ee magaalada Fiiq jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna waa sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa saamiga aqoontuna waa sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa saldhigyo caafimaadba santar iyo degmiya gobol saddexdaba ka howlgala arifaraal sarreeya wixii sababta geerida ka sokeeya oo idil si casriya u daawey saxada caafimaadkuna waa sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa saldhigyo caafimaadba santar iyo degmiya gobol saddexdaba ka howlgala arifaraal sarreeya wixii sababta geerida ka sokeeya oo idil si casriya u daawey saxada caafimaadkuna waa sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa salka maaxda ceeldihiin inta riig la saare sida webi bataaciyo afar dhaamya siman iyo barkado sibidh la mariyo roobka inagu sima xisbiga sameeyo surmi iyo harada hadhe saamiga waraabkuna sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa korna waan u soconnaa jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna waa sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna waa sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna waa sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna waa sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna waa sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna waa sagaashan boqolkii korna waan u soconnaa waxbarashadan oo ka socota guud ahaanba deegaanka ayaa waxay si toos ah uga bilaabatay degmada Fiiq ee xarunta gobolka Erar haddaba mar aan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata xaruntan voluntariga ah kuna baranaya sida mutadawacnimada ayaa waxay sheegay sida tan xasan cabdi waxaan joogaa gobolka Erar gaar ahaan degmada Fiiqad waxaan ka mid ahay waxaan dhigtaa xarunta kombiyuutarka tabarucaadka ah waxaan halkan uga hambalyeynaya macallinkanaga Axmed Kacaan Cabdiraxmaan
oo si fiican noogu soo barbaariyey inaan heer sare ka gaarno kombiyuutarka. waxaa kaloon halkan ka salaamayaa bahda s t v. anigoo ah Faysal Axmed Maxamuud ayaa waxaan ka mid ahay dhalinyarta gobolka Erar gaar ahaan degmada Fiiqeed waxaan wax ka bartaa xarunta kombiyuutarka saslaajigeed aad iyo aad kombiyuutarka maadaama si fiican aan wax ugu faa'iideysano waxaan u mahadcelinayaa macalinka anaga Axmed Kacan oo jaamacadii kadib muddada jaamacadda ka yimid kombiyuutarka inuu macnaha waxbaro ugu talagalay ardayda gobolka uu wax ka fahansiiyo kombiyuutarka saslaajigeed waxaan u mahadcelinayaa maadaama macalinku wax nagu baray aad iyo aad muddo badan uu jaamacadiisii uu macnaha ka yimid uu noogu soo talagalay inuu wax ardayda gobolka Erar dhalinyarta soo kacaysa hadda wax u faa'iideeyo sadarteed waxaan u mahadcelinayaa macalinka Axmed Kacan waxaan kaloo mahadcelinayaa madaxda iyo gobolka amaba degmada sadarteed iyadoo muddadii kombiyuutarka aan wax ka baranaynay aan hadda gaarnay rajadii macnaha qalin jebintii hadda ay wax yar nooga harsan tahay sadarteed waxaan u mahadcelinayaa madax mas'uuliyiinta gobolka iyo gaar ahaan mas'uuliyiinta degmada saslaajigeed waxaan u simaad celinayaa oo kale macalinkiin ardayda macnaha jaamacadda ka timaaday ka wax uga faa'iideysa dhalinyarta gobolka sadarteed waxaan u mahad celinayaa macalinka anaga Axmed Kacan oo leeyahay 100% waad mahadsantahay. aniga la dhaho magacayga Filsan Cali oo xarunta kombiyuutarka dhigta marka ayaa waxaan ugu mahad celinayaa macallimiintayda jaamacadaha ka yimid marka maxaa qalin jebinta anaga wax yar nooga hadhay marka macallimiintayda aad iyo aad ugu hambalyeynaya hambalyo baan leeyahay macallimiintayda 100% hambalyo anigoo Filsan Cali dhaga xarunta magaalada inaan hadda qalin jebiyana aan doonaya weena qalin jebin doonaa macallimiintayda oo hambalyeynaya hambalyo. waxaan ku noolahay magaalada Fiiq gaar ahaan Qabalaha labaad waxaan dhigtaa xarunta kombiyuutarka waxaan si fiican ayaan uga faa'iideysanaa waxaana bara wiilal jaamacadaha ka soo jaamacad fasax uga yimid marka si fiican ayaan uga faa'iideysanaa waxaan uga hambalyeynaa inaan anaguna si fiican uga faa'iideysano iyaguna ay si fiican uga faa'iideen haddana hadda in yar baa qalin jebinta nooga hadhay in yar muddo ka dhawaan qalin jebinaynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo eegana iyagana u mahadnaqaynaa in aan waxaan lagala soo qayb galno nagala. magacayga waxaa Doogbad Maxamed Qaadir waxaan dhigtaa aalada kombiyuutarka si fiican ayaan u fahanaa macalinka noo fahansiiyaa anaguna inaan wax ka baranay ayaan isku daynaa waxaan noo soo macallimiin fasax ka yimiday jaamacada ka yimiday markaas si fiican ayaan qalin jebinta waxba nagama hadhin waxaan ku hambalyeynaa inaan wax ka barano anaguna dadka si wax baranayna. Assalaamu calaykum la dhaho Ikraan Saxane Maxamed waxaan baranaa kombiyuutarka macalinkana bara Kacan ardada waxaan ardada الرحمن الرحيم magacaygu waa Raxmad Dayb Kaamil waxa aan ka yimid xaafadda Zero Society waxa aan dhigtaa xarunta tabarucaadka ee kombiyuutarka waxaana dhigtaa ardayda ka timid ardayda jaamacadaha ee ku timid fasaxa waxa aan ballan qaadayaa ka arday ahaan inaanu ka faa'iideysano fursadan qaaliga ee Ilaahay nala soo kulmiyay anaga oo ka faa'iideysanayna fursadan waxaan u mahad celinayaa xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee nagu sameeyay inay ardayda jaamacadaha ka timaada xilliga xagaaga ay nacaawiyaan alxamdulillah yahay mudane Cabdiraxmaan Cumar Siyaad oo wax ka barta private kombiyuutar ku yaala gobolka Erar gaar ahaan magaalada Fiiq una barana si fiican waxaan kula talinayaa ardayda dadka magaalada ku nool ee dhalinyarada inay wax ka bartaan kombiyuutarka bilaashka ah tabarucaadka inay ka faa'iideystaan si ay wax u bartaan waxaan ugu mahadnaqaynaa macallimiinta nooga timid heer jaamacadeed aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. waxaan ku noolaa degmada Fiiq waxaan rabaa annagu inaan kombiyuutarka barano kombiyuutarka waxaan rabnaa inaan dadka uga faa'iideyno annaguna wax barano waxaan marka koowaad mahadcelinaynaa macalinkana Axmed Kacan marka labaad waxaan mahadcelinaynaa madaxda noo horgelisay inaan maanta aanu halkan dugsiga Sida Cali wax ku barano marka sidaas laajiga waxaan leenahay macalinkana markuu ka soo noqday jaamacadda kadib annaga in wax na fahansiiyey raba annaguna 100% mahadcelinaynaa.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأحمد كعان عبد الرحمن مركا وحان كان هاي أرضها جامعة كلا تم حلقة فصحة taasoo ka fulinaysa ololaha tabarucaadka ee loogu talagalay xilliga samarka inuu bilaabo 5 bisha 11 bisha 12 2009 kun eg 5 bisha 25 bisha 12 2009 marka anagu kaarday ahaan waxa ballan qaadaynaa hal iyo hoob in la garab taaganahay ardadan marka waxyaabahan bixinaa hadda waxa kamid ah sida maadooyinka oo kale xilligan computerka aan bixinaa marka waxyaabaha kale ardada ugu soo kordhin waxa kamid ah maadaama computerka hadda kor loo sii baran jiray luqadda Ingiriiska marka waxaan u soo turjunay luqadda afkoodii hooyo qof walba fahmi karo oo wax turjaro banayn marka kale waxaan kula dardaarmi lahaa dhammaan dhalinyarta ku nool gobolka Erer gaar ahaan degmada Fiiq in ay wax bartaan kana faa'iideystaan waqtigooda siiba hablaha assalaamu calaykum jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna wasagaashan boqolkii korna waan u soconnaa jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna wasagaashan boqolkii korna waan u soconnaa jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna wasagaashan boqolkii korna waan u soconnaa jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna wasagaashan boqolkii korna waan u soconnaa saamiga aqoontuna wasagaashan boqolkii korna waan u soconnaa jahlina xididka loo siib saamiga aqoontuna wasagaashan boqolkii korna waan u soconnaa saamiga aqoontuna wasagaashan boqolkii korna waan u soconnaa sidaa keliya uu gaadhay waqtiga ardayda la maskabiye loogu talagalay in la maskabo markaas maxaa rabtay inaad barataan inaan jacaylka bartaan dooni inaad jacayl barato maxaa is maskabaya computer in la bartaa la isu maskabaya sidaana computerka aan iskaga baanahay igu soo qora hayo waaya ardayda gabdhaha maxaa rabtay inaad barataan waxaan rabnay inaan barano computer okay magacaantiina sheeg magacayga Bushra la dhaa adigana waxaan rabaa inaan computerka dhigto magacaygana waxaa la dhahaa Barwaaqo okay adigana aniguna waxaan rabaa inaan barto computerka tabarucaadka magacaygu waa Bilan markaas inaan dhigto computerka magacayguna Istaan anigu waxaan rabaa inaan barto computerka magacayga waxaa la dhahaa Jamiila waxaan rabaa inaan barto computerka magacaygana waxaa la dhahaa Mahdi waxaan rabaa inaan barto computerka magacayguna Saxane
markaas waxaa laydinka baahiyay inaad aad iyo aad u dadaashaan maadaama soo maskabteen iminkana cashiraanta dulbo iska bilaabanayaan markaas waxaa laydinka baahiyo keliya inaad dadaal bixisaan oo ilaalisaan waqtiga waxbarashada la bilaabayo marka banaanaysiin iyo imtixaanaadka saxa مسيار بلعب يساوي وفرسمات هو كان مسيار بهو كان يا صاني وحبرنا يا كمبيوتر كيف كان لا حبوب بنتو العب كان ورا كعب كان كفي عن وركمت سنة وحبرنا وفرسمات كان ما هو قضية يجابوا فاصل النقاط دي والله نقول ايه هلو بين كهرباء على على ورابي أنا حالات برتاي ولي ما برتاي أنا تطلع الله كان لهم قبل المدارة ولا دقيقة مسيار قطع ليكونه تركيا جبال قاسي لو كنت مية كسر مية فرباس يقوش ليسكو قصير بعض كلها بعد عبسة ومعكم ولا سوما وبرلكم فيه وحنا عباد وما تونا ما تريد القاضي واستعاني ولا يركضان اسكت كيس هذا ورنا هذا اسكت جميع نسير توجد ومهو قوي صايع عبد مرامي شكل أقول لك استيق رجل قاطع بيت عالي في الولي قاطع ما استيق رجل هذا كله عبد أنا بام عن ما يمل مبارك وربات محل في الولادات فيك عباد وحضرين بيت ها كمية بام برتاي كوا علي من قال الجبلية بري وراس مرقات يبح إيه رسيجار حتى الجبلات هنا والبيرح وأرجنا وبيرح وهاي بلا شراب أنا أسوق أكو سامري كذي حاجة جوي أحباب علينا لأنه يوم يا سيلا نيو بوين أوتي وانجا ما أجو خون برناي نالو أنا بيت نقطة والله هاي كلا هاي سيلا نيو ها سيلا نيو ها وما نيو أوتي وانجا فكتة سام هلا على عن بوتة ولا فاضلة أما على أوتي وان كلا خون برناي نالو بيتنا أفضل كلا هاي عروض حينا برتنا جديد ما هي برناي كمبيوتر كعشان كي برناي الكمبيوتر هو مع الكون مغلي جيري بيبقى مغلي جيري مقابل بربا الكمبيوتر هو أصلا يقلب بسيط على عصرها نوال ولا عرفين ولا عرف بيته وهنا فلان وجنو ولا هاي برني يا ولادي يا وهاي برني أنا ما هي برني أمريكا هاي برني الكمبيوتر كي بسيط الكمبيوتر هو مع الكمبيوتر هو والله الكمبيوتر هو أصلا يقلب ولا بسيط على عصرها ولقي بنت عليك انقطعها ما مقال كمبيوتر يا اخوان برنا وهدير مويين هذا وعلى عصري مركا ما نسبنا له ونصوم مستوينا ما لا مسؤولية ونصوم مستوي ولراعي وهي بلداي انا ما انا قاعد بتصير وكذا هاي أيوة أنا لعبت الكمبيوتر في شقيقي لكن عندها صار شعاع عيسى يلا بحيس مرت عدين من غنر أنت غيبت من صناعة الكمبيوتر معاك ليه؟ والله حلو الرباع
وما يكسب يكسب خلي بالك وما يكسب الصواب تبطيطا بورصتي وكسر له بيساقا وما حي ميكروسوفت أشهر من الويديز المدينة وأقول لك أنه شهر من صديقي للسؤال معك من يقول على تعال ما تكفي سوى كرسي ميكروسوفت اكسل ولا إذا أنا من أصلا أنت إذا تبتدي والله يحيي لي كلام عيان قابل لا فرق امتحان وانا مثل ما قالوا على يا عبد الكتاب تجيني زي وتصحينا امتحان كتاب بكو بيتي برضه سبحان الله تجيني ما هي امتحان اي حاجه عندي كيس يستاهل ان kuwan oo wada taagan ku dar way nagu cabay waxa way garan waayeen beertu inoo samayso qasir qaar sigaarada meelaha ku cabuu been loo sheegay maanta waxaa bartay calaashada koobis are dadar sirqayo fardooni amardoolaya yaa mardola are tiri mashba hadda tii sheegaysa maana baan ku sheegay runtii guud goolada ku sheegay qariya amala la ila kala qari أنا يا قالوا بلاد كنت ما صار قالوا لها الخطاب الطاير وبرت عليها أقعدت على العراس اللي كنت بتعمل حاجة زي مش المستقبل كي يجري لا مستقبل كانوا يبجاريات بقوة بوني حاجة أنا مستقبل كذا تغيري كوا أقول بل أنا أريد أن يكون يستقبل الله هو شيء سيريجي كران उसकी قلوب تاي فريسة कभी का जहाल की कुतुबों फॉर्म करेसो वहाँ फिर दिल्ली أنا वहाँ का हसन गायन अधिकार करेसो अभ्यासी वाला लोग अधिक आरोप आंध्र की करेंगे وروح الشيء يسوي وقت كذا على طول خارج السيارة ولا أحد دورين أنت الوقت المستقبل تيجي المسيمان سيما ما على تجارة كوري وبيار ساعة رات هذا تم كاسا كاشر قابلي وقت برحصاي أفكار بورش كل اللي قوي هذا قرية هاتوا على صوت سميسي وحولا شراء محكوا عند الأسرخاية وفرسالي تيجي ندور بولي كمان كذا تبغى أنا أقول لكم ما بني زماننا وحبرتها مستقبل له هذاك اللي يسوي بول المستقبل كي يرفع أنا بس أدور بول حتى وانكم برسين هذا هذه إلى يوم فكتب بحقه ساعتي ما بينكم فوجي لا صعبة كل كتوانا لنا أنه على حين سنين نحب أن نعطوا ما كي تبصر أخلي من الله هاي يا قولان من هي سمعنا الله هي مش هذيك سريع من أن تريها الله يقول لي معه ما تقدر يا قول وحي تايم ولا الله يوم يسرع كهرباء هذا كي بدل ساعة صبرت عنده وحول قام غادي والله إن الناس اللي كانوا تجنين يعني تذكر طول الشرف تاجا قاعد واحد قولي كمان على تكيل كنت أحلوتي أنا حقيقة قلتي هذه أنا حصلت لي نجاح ليه وحضر الله هذه الكلمة قال لي هذه نجاح ليه محمد لا أرجع عايش فيها قالت هاي بركتني وحنا كسر بنارو بسكتة ويلا لا يلا وشوت كودي وحيلا لا قاسا وتدي يجي كده سالو لي خلاص أنا فارجة أصلا حياة أنا بركي أنا ويجيبه لا هاي لي يديك أقوس كم مرة جراعة أنا جراعة أنا كم حاجة يجي وأنا أبيك أنا ولا شيء هذه اللي قال لي حاجة كتير بدو تسعته بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Axmed Cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata jaamacadda Jigjiga waaxda computer science and engineering marka runaantii waxaan ka bilownay degmada Fiiq waxaa jira qorshe sanad walba la bilaabo oo ah voluntary kaasoo ka socda dhammaan deegaanka oo dhan marka kaana ku arday ahaan waxaan ka bilownay qorshe voluntary ah degmada Fiiqeed hadda muddo 3 sano ah marka waxaan dhigi karaa meelaha uu aad uga tabagalay waxay ka mid tahay degmada Fiiq marka ka arday ahaan waxaan ballan qaadaynaa in aan sii xoojinayno marka ardaydan ku baranaysa computerka waxay dhammaayeen 105 arday kuwaasoo baranayay sanadkii hore fasaxii oo kale haddana aan u dhammaystiray bartayna basic of computers oo ka kooban Microsoft Office 5 program ku jirta marka ardaydan muddada soo baranaysay aaladda computerka waxaan ku boorin lahaa inay sii wadaan ayna noqon halkii ugu dambeysay ee computerka bataan maadaama barteen furihii teknolojiyada marka annagu ka arday ahaan waxaan ballan qaadaynaa waqti walba iyo xil walba oo fasax ku nimaadno goobihii aan ka nimid in aan sii laba jibaari doono dadaalkanaga ku aadan dhanka waxbarashada tan kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay la'aantoodna ayna suurtoodeen ururka federationka gobolka ururka federationka degmada maamulka degmada iyo maamulka gobolka marka waxaan ballan qaadaynaa annaguna in aan heel iyo hob la garab taaganahay dhammaan dhalinyarta ku nool degmada Fiiq
xilli kasta iyo waqti kasta ay haataba. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. cabdulaahi maxamed waxaan ahay gudoomiyaha federeeshinka dhalinyarada gobolka Erar. waxaan maanta aad u faraxsanahay inaan kasoo qayb galo maxayday xaflad qalinjibinta maxayday kombiyuutarka. runtii si aad ogsoontihiinba dalkeena waxaa ka jira xilliga fasaxa ama xagaaga loo yaqaano waxbarasho tabarucaad ah oo ay bixiyaan ardayda jaamacadaha ka yimaada. markaas deegaankii gaar ahaan deegaankeenan maxayday way ka socotaa waxbarashadaasi dhammaan degmooyinka iyo gobollada dhan. marka anagu gobolka Erar gaar ahaan waxaa si toos looga bilaabay waxbarashadan waa magaalada Fiiqeed oo muddo 3 sano ay ka socoto iyo maxayday magaalada Xamar. markaas maanta xafladan qalinjibinta aan u fadhino waxa weeyaan sanadkii hore kombiyuutar la bilaabay oo sanadkii hore 2 bilood ay ardaydu hore dhiganaysay oo loo dhameystiray hadda sanadkan 2009 loo dhameystiray. marka waxaan aad aan ugu hambalyeynaya ardaydan maanta halkan ku qalinjibisay ayaan ugu hambalyeynaa. waxaan halkan mahad aan ugu celinayaa ardayda jaamacadaha kala duwan ee ka yimid macnaha sida hagar la'aanta dhalinyartoodii u siinaya waxbarashada aad ayaan ugu mahad celinayaa. waxaan leeyahay dadaalkiina halkaa kaga sii wada ardayda iyagana dadaalkaas si laydinku dadaalay inaydaan khasaarin idinkuna aad ka mid dhalisaan oo wixii aad barateen in aad ka mid dhalisaan inaad isku daydaan oo halka aad ka sii wadaan. assalaamu calaykum. magacaygu waa Nasri Xasan Cabdi waxaan ka qalin jabiyay kombiyuutarka tabarucaadka ee laga furay gobolka Erar. waxaan halkan uga mahad celinayaa mudane Axmed Kacaan Cabdiraxmaan oo oo nagu dhiirigeliyo inaan barano kombiyuutarka. waxaa kaloo halkan ka salaamayaa bahdaya Steve مدة 6 bilood. inaan ka qalin jabiyo kombiyuutarka ayaan ku faraxsanahay. waxaan ku magacaygu waa Raxmad Dayib Kaamil waxaan ka qalin jabiyay kombiyuutarka tabarucaadka. sanadkii hore waxaan ka dhiganaynay muddo 2 bilood sanadkana waxaan ka qaadanay muddo 2 bilood marka muddo 4 bilood ayaan kaga qalin jabinay kombiyuutarka tabarucaadka. aniga oo aad ayaan ugu faraxsanahay anigoo maanta ku guuleystay kaalinta koowaad ee kombiyuutarka tabarucaadka. waxaan u mahad celinayaa macallimiinta waxna bartay ee ka timiday jaamacadaha xilliga fasaxa ee ku guuleystay inay waxna baraan annagoo wax ku baranayna kombiyuutar tabarucaada. السلام عليكم farxad aad u weyn ayaan ugu faraxsanahay anigoo ka qalin jabiyay kombiyuutar haba yaraatee wax dhaqaale iga baxay uusan jirin oo aan ku qaatay tabarucaad. marka hore magacaygu waa Nasruddin Amiin Shacabdi waxaan ahay arday ka mid ah ardayda ka qalin jabisay Erar Institute of Technology taasoo loogu dhigi jiray si tabarucaad ah. waxaa ku mahadsan macallimiintii noo dhigi jirtay waxaana ku guuleystay kaalinta labaad waxaana rabaa inaan kaa kasoo dadaalkanaga muddadan wadnina waxay ahayd 3 bilood. waxaan ku baxsanahay wixii aan soo baranay iyo qalinjabintanaga. waxaan dhigtay aalada kombiyuutarka waana ka qalinjabiyay si fiican ayaan wax u baranay. عندنا waan weynahay inaan si wax barano ardayda wax la sii dhigano. boqolkiiba boqol aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aalada kombiyuutarka aan bartay waxaana baray macallimiin nooga timid jaamacad aad iyo aad bay iyaguna mahadsan yihiin. magacayga Faisal Axmed Maxamuud waxaan ka qalin jabiyay kombiyuutarka. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa macallimiinta nooga faa'iideysay tabarucaadka ka timid jaamacadaha maadaama fasaxii nooga faa'iideeyay kombiyuutarka. waxaan ugu mahadnaqayaa mar labaad mar saddexaad ugu mahadcelinayaa macallimiinta nooga tabarucaadka sida fiican nooga qabashay annaguna wax macnaha lacaga ama wax kale ayna nagu jirin ayaa waxaan ugu mahadnaqayaa macallimiintanada sida fiican kombiyuutarka macnaha nooga faa'iideysay xilligii waqtiyada dheeraadka iyo xaraaga noo soo galeen in wax nagu faa'iideeyeen kombiyuutarka. bismillahi raxmaani raxiim marka hore magacayga waxaa la dhahaa Nasr Sheekh Maxamed
marka xigta waxaan salaamayaa macallinkayga wuxuu soo bareeyay anigu waxaan ka qalin jabiyay aaladda kombiyuutarka of error marka waxaan u mahad celinayaa macallinkayga wuxuu soo bareeyay marka labaad waxaan u mahad celinayaa waalidiintayda oo igula soo dadaashay si aan wuxuu baran lahaa aan uga qalin jabin lahaa aaladdan marka xigta waxaan u mahad celinayaa maamulkanaga oo nagu caawiyey inaan si bilaash u barano aaladda kombiyuutarka markaas haddaan xagan kala dardaarmo arday dhalinyarta facayga waxaan kula dardaarmayaa ama aan ku leeyahay noqda kuwa waxbarta si aad dadkiina iyo dalkiinaba waan faa'iidin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.